waxaa maanta magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug laga xusay maalinta 1 Luulyo oo ah maalintii ay midoobeen labada gobol ee waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya ayna la taagay calan midaysan oo ummad Soomaaliyeed. xuskani ayaa waxa uu ka dhacay xarunta maamulka gobolka Mudug hoolka shirarka waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo kaalinta ugu muhiimsan ee qabanqaabadana ay lahaayeen ururada dhalinyarada ee gobolka Mudug. waxaa munaasabadaasi hadallo kala duwan ka jeediyay qaar ka tirsan mas'uuliyiinta gobolka kuwa degmada iyo xubno ka tirsanaa ururkii gobonimidoonka Soomaaliyeed ee SYL. waxaa halkaasi ugu horeyn hadallo furitaana ka jeediyay Sheekh Cabdiraxmaan Salaadir Sheekh kadibna waxaa lagu soo dhaweeyay duqa magaalada Gaalkacyo Axmed Cali Salaad oo u hambalyeeyay ummadda Soomaaliyeed. marka hore la ururada bulshada sida dhalinyarada qaybaheeda kala duwan ururada haweenka culimada aqoon-yahanada xafladeennan talagalka ah oo ku kooban qaybtan hoolka oo aynu ku xusayno mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan idin leenahay. tan kale waxaan soo dhaweynaynaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka koowaad ee arrimaha gudaha iyo agaasimaha qorsheynta oo iyaguna marti noogu ah xafladda tilmaantay oo maxaan ku raacday halkan soo gaaray safar dibadda u sii socda oo booqashada shir ay ka qayb galayaan ayagana oo weynaynaa gudoomiyaha gobolka saxaafadda gudoomiye ku-xigeenada dhammaan waxaan leenahay haddii xaflad wanaagsan. waxaa sidoo kale munaasabadaasi maanta ka dhacday hoolka shirarka ee xarunta maamulka gobolka Mudug ka hadlay gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdinuur Maxamed Diiriye Geesay waxaana uu hambalyeeyay dhammaanba xubnihii ka soo shaqeeyay gobonimada Soomaaliyeed gaar ahaan xubnihii ka tirsanaa ururka SYL iyo ummadda Soomaaliyeed isagoo u rajeeyay sanadkiisa nabad iyo barwaaqo. ay leedahay maanta la kooda laako wadana Israaciil Soomaaliya ay ku midowday oo roobkeeni dadkeena meesha fadhiya oo waqtiga aanu dhibaatada gubeystuhu leeyahay ka hoos xanay oo dadkii u soo halgabay inaynu noloshaas soo gaarno haddee mirahoodii maalintaas aynu xusaynaa maalintaas wanaagsan waxaan leenahay luligeeda kaleta ilaahay khayr ku gaarsiiyo. intanada maanta gobolka Mudug ku xusaysa ama Puntland ku xusaysa ama Soomaaliya ku xusaysana ilaahay dambi dhaaf ha siiyo intii xusuusan xaqiiqaas intaas awgeedna ilaahay Soomaaliya nasri ha uga dhigo inay Soomaaliya ku midowdo taas ka gudbaya inta xafladda ka soo qayb gashay oo dhammaan ururada bulshada kala duwan iyo marti sharafta gurigoodii joogta oo wasiirka arrimaha guduhu hogaaminayo iyo madaxda kale la socota iyo madaxda gobolka iyo degmada degmooyinka gobolka Mudug bada saxaafadda dhammaan culimada iyo aqoon-yahanka iyo waxa inta ka soo qayb gashay oo aan garanayo inta meesha fadhiyaabeen dhammaan aqoon-yahanka yihiin iyo ragii halgamayaasha oo qaarkood calaamadihii ay wataan ay ka muuqanayso Abdullaahi Xasan dhammaantiin munaasabaddan xuska 1 Luulyo ee sanadkani ayaa waxa ay ku soo dhamaatay jawi alwaa sareeya waxaana guud ahaan magaalada laga dareemayay hambaliyada dadku isugu hambalyeynayaan sanadkani waxaana ay u rajeeyeen guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed in sanadkiisa ay ku gaarto barwaaqo nabad iyo weliba horumar. Maxad Jaamac Koronto ETN TV Gaalkacyo.